gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo xildhibaano ku weelinaya safarkiisa oo la shaqo ku joogay dalka Koonfur Afrika ayaa xalay waxa ay kulan la qaateen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Cape Town. kulankan oo lagu qabtay hotelka Southern Sun ee ku yaala bartamaha magaalada Cape Town ayaa ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town iyo waliba madaxda safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika. waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo gaar ahaan u mahad celiyo madaxda Soomaaliyeed oo meel dheer ka soo safartay si ay dadkeeda u aragto marka labaadna aan u mahad celiyo shacabka Soomaaliyeed ee Cape Town. salaan kadib maamulka iyo mas'uuliyadda noo yimid waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo iyo qalbi furan waxaan leenahay soo dhawaada marka xigta waxaan rabaa inaan mahad celin baraan u sameeyo maxaa la dhahaa madaxdeeni oo halkan inoo imaaday waqtigooda qiimaha leh inala wadaagaysa anagoo aan ognahay ayagoo shaqooyin fara badan ay sugayso oo dalku baahan yahay haddana gartay inay waqtigooda qiimaha badan wax naga siiyaan aad ay u mahadsan yihiin. waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo anigoo matalaya qaasatan gabdhaha Soomaaliyeed oo halkan ku nool waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan idin haynaa ixtiraam iyo sharaf badan waan idin soo dhaweynaynaa. Western Cape waa dadka ugu dawlad jecel jaaliyadaha Soomaaliya ee ku dhaqan Koonfur Afrika markasto waxay jecel yihiin dawlad inay soo dhaweeyaan waxay jecel yihiin inay warka helaan. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo khudbad halkaasi ka jeediyay ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin dhalinyarada iyo waliba garsoorka waxaana sidoo kale uu jaaliyada uu kula dardaarmay in laga fakaro sidii dalka dib loogu soo laaban lahaa. marka waxaan hortiin u joogaa waxa weeyaan wicitaanka hadii wacdeen danjiraha ay soo gaarsiiyay oo aan martaa ku faraxsanahay inaan soo ajiibay oon imad hortiin uma taagni madax ahaan waxaan hortiin u taagnahay adeega ahaan wixii aad nafaraysaan waadna adeejinaysaan annakan waxaan ku dadaalaynaa inaan wixii aad noo dirtaan ama noo adeejisaan inaan fulino intii tabartayna ah. waxaa weeye arrinta hadda oo diiradda noo saaran waa dhalinyarada arrimahooda iyo arrimaha garsoorka. in fact waxaa ayaan dhaweeyay nala joogay oo baarlamaanka loogu yeeray wasiirka garsoorka joogay waxay ku ballameen ayaga waxaan isku darnay asaga iyo guddiga noo qaabilsan garsoorka iyo arrimaha diinta iyo awqaafta in ay 15 maalmood noo keenaan warbixin hadka loo dib u eegis ama dib u habeyn loogu sameyn karayo laanta garsoorka oo sida sharcigu u dhigayo lagu socodsiiyo guddiyadii madax bannaana loo dhiso kolihii sare ee garsoorka loo dhiso ilaa garsoorayaasha kulligood martaa dib loogu noqdo kuwalba xaalkiisa. waxaa loo baahan yahay markoo camal aan idinkula talinayaa si timaamka camal fasax soo qaata soo arag ka soo noqo intii bannaanka aad joogto waxaan kuu sheegaa inta aad bannaanka joogto cabsidaada iyo fulinimadaada waa kordhay. intaasi kadib gudoomiyaha baarlamaanka iyo waliba waftigii uu hogaaminayay ayaa su'aalo aad u tiro badan halkaasi lagu weydiiyay oo dhammaantoodba ku saabsanaa xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya. Cabdikariin Mursal, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cape Town.